soo dhawaada garaadku abaabulan weeye soo dhawaada wara soo dhawaada war ma la maqlayaa horta fiican ma la maqlayaa waxaan idin haynaa information aad u weyn baan idin haynaa soo dhawaada information aad u weyn baan idin haynaa oo ku saabsan wuxuu ku saabsan yahay dil boosaaso ka dhacay shalayto oo niman dad la laayay isugu jira niman argagixisaa iyo dad kale waxba galabsano masaakiin la iska laayay without reason wax loo dilay ma garanayno marka dadka inaan u hadallaan rabnaa la laayay dadka la laayay baan u hadlaynaa marka soo dhawaada dadka microphone-ka haysan garaadka u hadla moogta anaa u hadlaya dadka microphone-ka haysan ninka u hadla waa aniga marka sii sheergareeya barnaamijka oo ogahay waa leyd Soomaaliya dad badan baa hadda laga yaabaa inay hurdaan annagu dadka Soomaaliya waxu sheegnaa moogta dadka qurbaha jooga waa dadka aan rabno inaan dalkii ku laabtaano ma fahanti marka sii sheergareeya barnaamij khatar ah idin haya yar la dilay oo gurigiisa lagu dhacay oo ilaahay hadda wax loo dilay aan garanayn niman la iska laayay oo la Arsenal weeye oo baaskooradii madaxa loo saaray warar badan baan idin haynaa sheekada ka socota Boosaaso Aaranjan iyo mashruuca ay dadka ku leynayaan oo ilaa iyo 10 sano iska soo socday baan doonaynaa inaan hadalno adeer waxaan ka caawinaynaa maandhoweed Mareykankii baa cirka wuxuu ka garaacay Mareykankii baa cirka Soomaali ka garaacay baan halkan ku dheelaacaynaa Mareykanka laftiisa aan haysan aan ku lahayn waradeer cashuurteedii baa intaad naga qaado baad gido dad ku leysta iyo Soomaaliya iyo bu'aale dad Soomaaliyeed I have right inaan ka hadlo waxa sababtoo ah waa inaan sheegaa inaan cashuurta bixiyo Mareykankana uu dadka cirka intuu ka garaaco dad ilhaam maadho xitaa fail gareysay mashruuca oo ka hadlaysa oo lahayd dad Soomaaliyeed baa la laayay Mareykanka laftiisa qirta inuu dad Soomaaliya markuu hawlgallada uu laayo anigu saxaafiyadka soo saara African way soo dirtaa markay dad civilian laayaan way sheegaa intaas aan leenahay dhahan marka wax la yaabanahay meeshii Puntland la oran jiray dad masaakiin ah la iska leynayaa caruuraha guryahooda lagu dhacayaa ardaya madaxa laga tooganayaa waa Al-Shabaab baa la leeyahay cid alaale cid cadeynaysa oo madax banaan ma jirto waa in la helaa guddi madax banaan oo waxaan cadeynaya waa in la helaa guddi madax banaan hadaan la helin guddi madax banaan waxaan cadeynaya adeer wax soo shaqeynaya ma sheekada aan idin bilaabay maalin dhaweyd shalayto baan maleynaya ciidamada Puntland kuwa awla Boosaaso jooga iyo bari waxay sheegeen inay niman argagixiso laayeen oo ay gaari rasaas ku fureen deetana ay gaarigii qabteen lama nin ay ku dileen nin uu cararay nimankaas Al-Shabaab ay ahaayeen taliyihii oo ka hadlayaan idin dhageysiinaya waa hadda si fiican u dhageysanaysaa dhagihiinu furayihiin ila dhageysta meedkii baa la isku sawirayaa ilaa iyo hadda waxaan la yaabanahay meedka horta waa la asturi jiray dhaqan Soomaaliyeed iyo dhaqan Islaam toonna maaha qofka meedka xurmad buu mudan yahay qofka meedka markuu dhinto waa in la asturaa la dadaa qofkuna ilaa maxkamad cadeyso inuu dambiile yahay cid ku eedeyn karta waa dambiile ma jirto qofkaas waa eedeysan xitaa hadduu meed yahay oo uu halka yaalo waa in baaritaan lagu sameeyaa hay'adaha anagu sharciyada waanu baranay asharaanu qaadanay waxaanu fahansanahay waxaanu ka hadlaynaa waxaanu naqaan weey anu kama hadlayno qof waxaanu sheekada Soomaaliya ka socota waxa weeye ninka meedka inta la dilo lama oran karo yaa cadeynaya baaskoolada Belgiumka ee saaran ee taliyuu sheegayo inay iyagu saareen inuu sitay yaa cadeynaya waa in laga qaadaa iskaan laga qaadaa ninkan gacantiisa waa in baaskoorada iskaan laga qaadaa waa in marka la dameeyo DNA-ga iyo iskaanka baaskoorada laga qaaday iyo ninka gacantiisa la soo baarada ismaad gareeyo inuu baaskoorada ninkaas waa dambiile laakiin nin maskiina inta la iska dilo dadka garabaraata aan Puntland u dhalanta baaskoorada la saaro ayaa la leeyahay waa la dilay adduun waxaas kama dhacdo Mareykanka haddii nin askari uu qof shoot gareeyo oo maxkamad la isla tago
baaritaan baa la sameynaya waxa la soo qaadaya baaskoolada ninka sitay baaskoolada askariga ka dhacday waxa la baaraya inuu isagu baaskoolada gacanta ku hayay baaskoolada iskaan laga qaadaya gacantiisa laga qaadaya xabadihii baa la baaraya xitaa uu hurtay hadana socota adduunka wax iskama dhacaan adduunka qof kasta intuu qof dilo wara la anigu midin dadka la yaabaro midin adduunka waxaas wax ka shaqeeya ma jiraan ana waxaan rabnaa dawladana ma eedeynayno oo ma oranayno khalad baa qasheen kuwaana dambi aan lahayn inaanu ka qaadno ma doonayno guys like waxa doonayno waxa weeye war inaan cadayno aakhiro dadka wala la weydiin wallahi baan u aqoon dadka ilaahay baan u qorto ilaahay baan u qoon like waxaan garanayaa wiil Soomaaliyeed oo reer Sanaaga oo reer Boosaaso ah oo si fiican u garanayo inta gurigiisa lagu dilay dawladdu intay gashay iyadoo cararaysa ay maca gaariis ka haysatay kaas waa anada issue waa u tii doonaa like waxaan ka rabaa inaan ka hadlo war dadka meydkoodii la isku sawirayo ee halkan yaalo yaa cadeynaya inay dambiilayaal yihiin bal taliye la dhageystay wuxuu sheegay meeshada mid ka ciidanka amniga iyo kooxda hubeysan ayaa sababay meeshada mid ka mid ah maleeshiyada sidoo kale ciidanka ayaa nolol ku qabtay mid ka mid ah dabligan hubeysan waxaana sidoo kale gacanta ku dhigeen gaari ay wateen oo ay ku jiraan rasaas iyo walxaha qarxa taliyaha ciidanka booliska qaybta gobolka bari gaashaanle sare Xuseen Ali Maxamuud waxa uu sheegay in howlgalkan ay wadajir u fuliyeen qaybaha kala duwan ee ciidanku isla markaasna ay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan kooxdan argagixisada ah oo uu sheegay inay dhibaatooyin hore u geysteen magaalada Boosaaso. maanta ay taariikhdu tahay 9 bishii shanaad 2020 waxaan taaganahay goobtan oo u dhow magaalada bartankeeda ah oo Meesirowdo loo yaqaano waxay ka fuliyeen ciidamada ammaanka dhammaantood BSF iyo BMF iyo police dhammaantood dhagarayaashii ummadda dhibay oo mar badan waxa weeye intay faral geystaan ku carari jiray magaalada waxa maanta maqnaatimo doonta oo aan bulshada u soo bandhigayna inay ciidamada geesiyaasha ay jawaab ka bixiyeen habeenay maalin u taagan yihiin inay noocyadaas dhagarayaasha nimanka waxay wateen markaan faahfaahin ka bixiyo goobtan aan taaganahay gaarigaan aragtaan bay wateen ciidan shaqo ku jiray oo magaalada ronde ka hayay oo magaalada oo dhan bay ciidamadu ku jireen ayay ku bilaabeen rasaas waxay ku bilaabeen rasaasta baaskoolada loo yaqaano oo bildanta ciidankaasu tallaabad taliyo wuxuu leeyahay waxay ku bilaabeen rasaas iyo baaskoolada birjimka loo yaqaano anagu ma diidano inay nimankaas rasaas fureen mana cadeyn karo laakiin waxaan sheegaynaa kaliya waxa weeye Boosaaso iyo Puntland waxaanu u soo joogeen oo aan markhaati ka caynaa oo aanu arki jirnay oo aan naqaanaa in intay askartu dadka qabato ay baaskoorada saarto dusha iyagu saaraan oo aan la shaka ahayn yaa cadeynaya nimanka la qabtay ee gari koombe iyo sheekhaasha halka lagu dilay ee aan waxba galabsan inay al-shabaab ahaayeen yaa cadeynaya mid kale yaa cadeynaya qof kasto anu hadda booso tago baaskoorada baan qaadanaya meeshii hadaan dawladku ilaalinaysa jirin ciidankii iyo dadka cashuur dadka laga qaad dadka la laynayo anigu rayd baan waxaan u inaan qorigeyga qaato islaaniyo Mareykanka guriga yaala malbasa waa wax sharci ah dukaanka laga soo iibsanaya qof kasta isaga islaalinaya laakiin waan sharadaam loo maraa markaad baaskoolada qaadanaysid yaa cadeynaya nimankaas inay niman ganacsata ahaayeen oo ay baaskoolada isku ilaalinayeen ilaahay hadda cid cadeynaysa ma jirto qofka waa la dilaya hadduu baaskoolada sito baaskoolad baa lagu qabtaa la leeyahay wariyaa baaskoolada Ismaan Maxamuud kan Boosaaso jooga qaybinaya iyagu way sitaan dadka leeyahay baaskooladu ma guryaha danabay ku xareysan tahay iyo nimanka Ismaan Maxamuud waxa way ilaa iyo maalintii Cadam Muuse xilka la wareegay wuu dhintay Boosaaso dhibaato ka taagneed qof allaale qofkii la dilaa ee laga tumaano Warsangeli uu noqonay anu waxaan la yaabanahay wareer waxaan maqli jiray wuxuu baxaawaale sheekadii atam haday dhamaatay oo atam aan musaafurnay oo aan qadar geynay oo aan adar faataxan kugu dirayna naga tag still Warsangeli ma la dhibaataynaya macnaha adar kii wax ridaa oo al-shabaab noqdaa muu oranaya waxa weeye Warsangeli adar xasu waxaan yeelayna ma waxaan aqbalayna ma only ma Warsangeli dadka la leynaya waa dad aan dad citizen oo Puntland u dhashay ahayn waa gari koombe waa sheekhaal waa dadkan aaraareeda ee koonfurta ka yimi waa hawiye waa yami iyo qadaadweyn waa majarteenkan yaran saka galaaska ka Puntland aan looyaanka aan maalin kasta halka ugu doodayno u hadlayno yarantaana soo caaya balaayo dhan baa la leynaya marka waxa weeye waa in la helaa guddi madax banaan ee nimanka intaan la aasin baara oo xaqooda raadiya oo baaskoolada iskaan ka qaada oo gacmahooda iskaan ka qaada oo xaqiijiya rasaasta askarta lagu soo riday ay sheegayaan iyo rasaasta baaskoolada ka soo dhacday inay smaaj gareeyaan sayniin adduunka saas wax loo baaraa inta qof iska dilaan baaskoolada ma saari karay
no way waxaas meel ka shaqeeyaa ma jirto yarka yar ee madaxa dhuubana leeyahay waa bahan kareen adeero gacaliyo waxaan kuu sheegayaa balaaya gacmahaaga haligin ninka Warsangeli ee aad gurigiisa ugu gashay ee aad dishay ee aad ciidanka u dirtay ee xitaa damiir xumadaada iyo dulinimadaada iyo mas'uuliyad darradaada aad xitaa u tacsiyadeen weyday dadkii uu ninka dhalinyarada ka dhintay baanaad la yaabana ninkaas dulinimada u dhageystay balaayaga bal wareysigiisa dhigay xitaa askartan qof baa ka dhintay askartiis ka mid xitaa umuusan tacsiyadeen waa nin iska mamaya oo dhiig umadeed ku mamay nimanka masaakiinta oo la dhiigooda uu rabaa inuu leefleefo u jeeda askartii bodyguardkiisa ahayd uma tacsiyadeen oo ma oran askari baa halka naga dhintay muuse sheegay ninkii dhalinyarada ahaa ee Warsangeli ee Aadan Saciid ee gurigiisa loogu galay ee ceel doofaar habeenka ka soo hoyday ee Soomanaa ee aan weligii argagixiso ku shaqulayn ee aan weligii baaskoorad qaadan ee la yaqaanay ee muxtarimka ahaa inta la dilay oo gaarigiisa la qaatay soo dhig lagay umuusu tacsiyadeen ila khalad baa loogi dadku way khaldami karaan booliska aanu arkayno Mareykanka uu awood weyn maalin kasta way khaldamaan dad beelaayaan oo dad bay dilaan laakiin way qartaan askartu way qartaa waxa aan sameeynay bay yiraahdeen hadda la socotaa qofku hadduu khalad garo waa inuu qirtaa nimanka Maxamuud Saleebaan waxaanu ka kaleelaanahay war dhiiqa markaa gashaan qirta dhiiqaanu galay dhaha oo dadka ka qirta waxaasaanu sameeynay ka qirta waa geesinimo waa raganimo cadaalad ku jirta dadka idin soo dhawaanay waa inaad sheegtaa markaad wax gashaan bal hadda dhageysta dil baa dhacay yar aan waxba galabsan baa gurigiisa lagu dhacay waa lagu dilay taliyihiis askartiisi qof kamid ah lagu dhintay uma tacsiyadeeyo saas ku dhamaanaya maanta wuxuu ku meeraysanaya meed baan iyagana waa u jawaabeen midna waa ka dileen midna waa dhaawaceen oo gacantay ku dhigeen gaarigana waa aragtaan waxa u dheer gaariga inay u saaran yihiin qaraxyadii inuu saaran yahay rasaas caakaynay saaran tahay inay saaran tahay boosashka nooca loo yaqaan inay saaran yihiin yaa caddaynaya inay saaran tahay waxaanu qarax yihiin Puntland khibrad boomale inay baadho qaraxa ay sheegayaan haddii maanta aniga gurigayga anoo koronto gashanaya lagu qabto waayiro iyo caaga gaariga lagu qabto Puntland waxay oranaysaa qarax baan ku qabanay waxa aqoon uma leh qaraxan booliska Puntland aqoon uma leh sida loo baadhano ma garanayaan markaad waxaan qabatid isla markaba inta shir jira aad ku dul qabatid ina cadeysid ma waa inaad wixii baadhaa qaadaa saldhigaaga geeshaa baaritaan ku samaysaa dadka ku shuqul kale aad u dhiibtaa dabeedna ay soo bandhigaan waxaan waxay yihiin aad sheegtaa xitaa inta qof ay dili karaan sida loo rakibi karo waxa ay ka samaysan yihiin meesha ay ka soo galeen waxaas oo dhan anigu adduunka meel ay ka dhacdo wallahi ta Soomaaliland ta goostay kuba arag dad intay fal qabteen falkii shir jira aad ku dhex qabanay war waxa rabto in la baadho Soomaa meedka waa in la asturaa la dadaa la geeyaa meelaha talaagadaha lagu ridaa la baaraa waxaan ay sitaan la baaraa in yaa cadeynaya hadda kan dhakada dhuumanay meesha tan Ismaan Axmed qarax baan qabanay buu leeyahay bal cid cadeynaysa waxaan inay qarax waa isagoo qoonbo male xaqu ku soo bartay ninkaro dugsi quraan buu ninkan u dhigi jiray taliya laga dhigay weligii xitaa tababar Ethiopia u tagay bal cid cadeynaysa inay waxaan qarax waay dadka aan u hadlaynaa waa dadka masaakiinta ay mikrofoonka ay ku hadlaan aysan haysan dadkaas baladi ku dhigaysan ninkaas ku hadlay ninkaas taliya booliska oo gobolka ugu weyn Soomaaliya xukumaya waanu cadaalad u dhiibay baladi ku dhigaysan ku hadlay ila dhigaysan fiilooyinkii iyo qarax oo dhammaystiran inuu saaray qalab kale oo Soomaan qoryaha lagu xiro badan inay saaray waxay u muuqdaan inay yihiin niman operation ku talagalay inay ummadda ku dhaqaan meel kasta galeen ama shacabka ku laayeen ama ciidan laakiin ciidamada ammaanku way ka jawaabeen aad bay u mahadsan yihiin boqolkiiba boqol waxaan u mahadcelinayaa ciidankii shafriyey iyo cid kastoo ka qaadatay shacab weynaha aad baan uga mahadcelinayaa waxaan usoo bandhigi doonaa gaadiidkii lagu fulin lahaa qaraxii siduu ahaa nimanka meydkoodii waxaan leenahay bulshada gobolka bari gaar ahaan degmada Boosaaso inuu cadawgaasu qof walba dilayo oo diyaar loo noqdo qof walbaba gurigiisa iyo gaarigiisa ay soo fulaan iyo meeshu maray inay sheegaan inaan looga gabanayn al-shabaab iyo daacish meel inaan looga gabanayn talaabada ku habboon laamiga la dhigi doono waxaan rabaa inay saacad walbaba iyadoo rabadaana oo waqti kasta ah oo xilli kasta ay ciidanku taagnaan doonaan waxaan aad ugu mahadcelinayaa ciidankii ugu horreeyey oo falkaas u qabsaday oo dad waraysi jira inuu dhamaado 2 daqiiqo baa ka hadhay waa sii deeraya laakiin waxaan aad ula yaabay ninkaasu ciidankii markay nimanka qabteen ay rasaasta ku rideen si iyagu sheegayaan way carareen xaafadii lagu qabtay xaafadaan ahayn bay sii galeen ninkii gacanta lagu qabtay wuxuu u sheegay inay degan yihiin guri uu leeyahay nin muxtarima oo ganacsada ah oo gudoomiyaha gobolka bari walaalkiisa oo la yiraahdo Liban Dheere la yiraahdaa waa nin aad booso loo yaqaan oo Cali Saleebaan oo cawliyahan inuu yahay filaya gudoomiyaha gobolka aanu saaxiibnay aan isaga saaxiib baan ninkii la qabtay wuxuu sheegay guriga ninkaas aanu deganay
walaalkii oo gudoomiyaha gobolka bari markii loo tagay oo lagu yiri warkiiskii guriga walaalka uu soo galay walaalka guriga masaajidka kutiba weyn aagiisa guri ma kuleeyahay xaasha guri kuma leeyahay nimankii ninkii bay kaxeeyeen gurigii bay geeyeen laba nin baa laga soo saaray Allahu a'lam labadaan inay shabaab ahaayeen inay ISIS ahaayeen inay niman garab rarata ahaayeen oo magaalada degan cid allaali cid cadeynaysa ma jirto anoo kaliya waxaan sheegaynaa in niman guriga laga soo saaray kiiskuna uu leeban dheer galay reer bariyow haddaad idinku lugaha isjaqaysaan oo dadkan aad rabtaan inaad lugoysaan oo dhinaca laba cashuurad aad bixinaysaan cashuurna aad Arsenal siinaysaan cashuurna aad dawladda si aad idinka cilfurko waxaynu isaaq ku eedayno hartiyo iyo waxaynu xamar iyo hawiye ku eedayno ma jirto sheekadu gudihiina ka socotaa filinkan soo afjara waxa kan dadka maleegaya waa dadka magaalada degan weey annaga Warsangeli hadaan nahay sheekada mar baan la ku xamtay mar baan la ku xamtay in atam leeyahay buurta galay isagu sidii nin weyn buu dagaalami jiray dawladda isaga diriri jiray annagu intaan dad soo leeyna madaxa kama toogan jiray dadka masaakiina annagu nimanka Maxamuud Saleebaan waliba ciidanka BS la yiraahdo ninka ay haysteen oo waliba 70% Warsangeligu ka soo horjeeday 30 kamid ah anigu aan ku jiraa taageersanayn in nimanka isticmaashaa la dirka tuugta ee wadanka lagu geeyay ma la socota markii dambe waxaan ku dhaaday faataxan kugu dareynaa qadar buu aaday wuu ka tagay Warsangeli oo maanta Arsenal ku jira iyo qof la qabto oo maanta ku lug yeelan kara ma jiro warana hadaan dirno gobbaan u dirnaa ninka faroolaan u saynay meel baan faroola ku hubsan mala socota qarkaas aan ku soo dagaalamin anagu qarkaas aan fuulaa boosaaso iyo kuma dagaalano meelaan haween ku joogan marka reer bari waxaan idinka qasaya dadka dhibta ka daaya oo dad masaakiin oo aan galabsan dusha ka saarinaa dusha ka saar oo wiilka Ismaan Maxamuud waxaan leeyahay boosaaso taliyaha qaybta ka dhibaato farahaga la geli nimanka Dubays iyo Aadan Saciid iyo Warsangeliga halka diga nabad bay ku jiraan faroole heshiis baan la galay inaan xabad qosh meel ku siin isagu aanu dad masaakiin intuu ciidan u diro aanu barakicin galgala iyo ceel doofaar iyo aanu buuq ku furan marka waxa weeye aanu waa eegayna ninka Aadan Saciid maanta gurigiisa lagu dilay waxaan idin soo wadaa mar raadin daaraya video isagoo carmo jooga maasha Allah ceel doofaar buu afro tagay habeen hor halkaas ku maqnaa marka uu soo galiyay 12 maalinaba ahayd marka ay shir filku ka dhacay wuu badaalana gurigiisu yib videogiisa isagoo live soo galo hadlaya oo la ceel doofaar baan joognaa ceel doofaar joogan idin haya nin kullu kulaha oo sheekada ku jir ma jirto waxaan u baahanahay ninkii falka deeyay ee ninka odayga dhalinyarada ee gurigiisa ugu dhacay ee dilay ee gaarigiisa qaatay waxaan u haysanaa anigu Ismaan Maxamuud cid kale wallahi uma haysan oo billahi uma haysan wallahi uma haysan wala ma jirteen kala aan u haysan wala cid kale aan u haysan anoo nabaka Ismaan Maxamuud waa naqaana shalay baan qarno ku soo gabagabeynay oo gogol dhignay oo iyaga iyo Ismaan u gaariyahan filinkoodii 10 sano socday soo afjarnay mala socota anigu dawlad kasto Ismaan Maxamuud marka ay timaado Warsangeli uu xabad ku dhacday anigu waxaan la yaabanahay maxabada afkeeda hore baa waxay ku qorantay Warsangeliga inay aado mise anaga GPS baan ugu rakiban oo xabada na soo door la waxaan macquul ma ahay adeer gaali waxaan wax macquul 30 sano ay dadka istii ku jiraan qofkii la dilayaa baa Warsangeli noqdo qofkii Arsenal waa Warsangeli noqdo anu shakaas aan la yaabanahay ya waxaan la yaabanahay iga dhaadhicila ilaa iyo since 2005 kii baan sheekada wax ka qoraynaa anigu aad baan ula socdaa nimanka Ismaan Maxamuud waxaan ay ku mameen dadka inay laayaan xidhxidhaan biyaha madaxa u galiyaan quusiyaan wadeer gacali anigu kuwa la quusiyo manay kuwa quusanaysan aaraare ee masaakiinta u doodayna anigu nimankii buurta fuulay ee atam ee faroole kaga yeersiiyay dumarkii haweenku qoryaha qaateen baan ahayn anigu ahaa ninkii ka saaray atam ee yiri atam oo ka bax ani Caasha Axmed Cabdalle xilbaanada atam oo ka bax nimanka ma jeerteen iska ka celin karaan hartinimada iyo qiyamka iyo bulanimada aynu ilaalino al-shabaab baad madaxa ku wadataa ka bax markii hore uu ciidanka watay ee uu la socday ulaha waxaan ilaalinayaa macdanta anigu taageersanaa haddaana anigu ka saarin oo aan oran buurta ka bax oo xamar aana u nooriyin oo dawladda Soomaaliya aana kala hadlina maanta bulan galgalin bay noqon lahayd 15 kilomitir bay boosaaso galgal u jirta hoobiyo ku soo tuuri lahaa bala socota laba xiliyood baa qardaan wax halkaas aan u geyn Maxamuud Cali Shire nin nooga dambeeyay inkaas jira oo wallahi billahi aatan baa jira nin Maxamuud Cali Shire iyo caaqil dhahar ka Warsangeli uga dambeeyay oo kixinaya badan inkaas jira ninkiina arrin baanu kaga saarnay qadar baanu geyn war meena soo celinaa rabtaa Ismaan Maxamuud aatan soo celinaa wallahi tigir baanu diray oo billahi tigir baanu diray oo wallahi tigir baanu diray maanta aan tigir diray booso ka soo dibaalay bal yarka madaxa dhuunay Ismaan Maxamuud isaga yaqaan meeshu aadi baldani oo baarlamaankii ka kacay oo u dul qaadan waayay baarlamaankii ka cararay ee afka abur ka sii daayay haddaan ata buurta soo fariisiyo ma wallahi xaar buu sii diiraya kaadiyo billaah Allah afku ka sii daayay dhareere xaar baa ka soconaya adeero gacaliyo dad baanu haynaa dad baanu idin celcelinaynaa joojiya anna waa isnaqaana
محمود سليبانو ما تقالنتان مساكين باتين نمك عثمان محمد أهل بانو هاي كو نمكي وقبي نمكي لورنشري خليفة الشيخ محمد كو شاربها ميقي شري ومكان دبني مركي ريرتلقوا أركان باسم التحياني ومكان دبني فويد نمكن عثمان محمد وحي قانين ريرتلقوا مركي أركان باسم التحيان بالقبي قاعد يقيس كو شاربها ميقي شري ومكان دبني مركي ريرتلقوا أركان باسم التحياني خليفة محمود بي أنا معنا وعارف سليبانو وقبي نمكن عثمان محمود ديجي كم مين تلقوا بيحري ويه عليه السلام أنا مري بعصدان سوى قرر مري بعصدان عثمان محمود يوارس من عثمان وقاريان لي هذا عثمان دبيس مري بعصدان دبيس ككل اسمه قاراني مري مالها حنيف أي بعصدان ويه أي مالها اسكتوا فورا أنا اسمه سو قارني يا اسمه سو قارن أنا بتنقري ككل اسمه سو قارن مرة صوتها لما كان هالك يوي دقيق بس بعصدان وحنا شيء وحوي مركب أنا قلت له سوتشي ذريه ثلاث سوتشي وحوي عثمان محمود يورسنجلي إلهي بقى إسبقي سبيشال ورسنجلي جدجن بري ورسنجلي كلمة تجنيه ورسنجلي بري تجنيه إلهي بقى إسبقي أنا واحد بس وجه جنيه لما كان عثمان محمد هذي رمان ماشى بري إن حل قوة النورادو واللي ود تجنيه أو حلال الله وذا النورادو أديرون لما كان عنو على سلبان وكرم ساكين تا هذا وفي يورين سألوك منهم هذا ما سعته والله بالله والله عتم قال أنا كساره ninkii la hadlay ee yiri afroole maantu BBC ka hadlay ee yiri dumar iyo haween oo qoryaha qaata waa leena ku soo duulay anay Aasha Ahmed Abdallah Turiyadiisa ka wacanay oo niri warniyo nimankaas kuma ka celin karaan iskaga bax uu ka baxay qadar baanu geynay dawladda Soomaaliya qadar baanu geynay war ma ninkii inaan soo celinaa rabnaa barabta oo nagu kalifaysa oo wallahi oo billahi oo tallaahi tigir baanu diray caaw atam baan leeyahay boosaasi ku soo dig بلدريو وهذيك أفك أبوك كينا يه حار بتسيد دينيسا حار قرموكيس أنا أوريكري بتسيد دينيسا كان ير السكر ومن أباه جريانا نينكي ورسنجلي وبوساسو كدري شليتو جورجي سلوكو عاد سعيد هدي عن لكينن عدي دشي ودولة أنا رجالين كبحين ومدحوينها الدني وتشوت على قبط أنا فول قبل تسبحين وحضلم وأرنيك عنك وقعنت يدي كم خان يهاي أنا قاعد دلي خالد بان دلي نمنكي دلنا قعنت عن كوهاي نواكا والله تاسع وسيلكو كم أي بالله طلع وحكى لو أنا كو كم أينا ولا يبيس نجري شن اسمه محمود الدليل والله وحن عذر لبعت السنة ندرو قادني لبعت السنة ندرو قادني وحن الله ينكر السوق بتاع ورسنجلي بها ما مال قرح كده عيبو تاجناها دلة ودلة سيد هذا المية اللي مرد معنا أنت كبدنا والله إنك مرد بطل والله يبان قفت من ورسنجلي اللي يدلي يبلاه طلع تطق باسكور دي ستان وسأل علينا يان دولة ويفر شلنتي قف كست أو باسوسيتا باسوسيتشو إسقى حق ولا نفتي سإنه ولا عليه مريكا كأنو تشوف نضتك قريه وده قريه يا ليجا سأل علينا قف كست هو باني قريه على قرب يا I have right إن كان هست شو بامبيا وهو ينفتي نقول عليه ما كان كورين أريج حتى قريه يسوي ورث قف كست أو باسوسيتشو كان قريب باسكور بسواستا مركا قف الله على قف كي باسكور لقوا قفتها من الشباب ده يربي قريجيسي وقول قلين صادق ليرادو وآدم سعيدة وضدك مقالة الدقناء طبعا حبا على قول افتقاريجيسي نوال قاطي وحاندين داريا فيديو يسوقوا بالإله دقيستا يسوقوا عار شوقع عيال دوفار واسكا باشاريا بالإله دقيستا وحيا إلهي جاب بيدين كينيا مصيبة كسو عطماشا والماشي بقول لها البلايا كسو عطانيو بالإله الرجال إله دقيستا نكا عضيقا إله دقيستا عرموت شوقع مركا عطكا صوتوه وفيديو وسوقوا دي فيسبوك إله دقيستا السلام عليكم وطلبان ما يفقى جفتا شاهد واحد الذي هذا عرض وفاروية مارتا وشلي هجلدي عيل دوفار بوجوغا نيكا odayga ee la dilay ee Saadiq la yiraahdo Aadan Saciid ee gurigiisa lagu dhacay anagu personal saaxiib baan u ahayn ad buu wuxuu soo qorqortay xalay wallahi ma seexan dhig kar inuu ku dhacaan baanaadu ku sagtay sababtoo ninkaas aan qaan man ninkaasa la dili kara oo la tuhmi kara iska baashaalay gaarigiisa wata intuu higlada tagay caanaha ku cabay higladaas uu jooga ceel doofar dhageysta waa shalay ilaahay baa ugu nimcay daaco waa mufruud wala wadha ala al-qatla aw ala al-ihtinam aw al-samhu aw rahma washada wasaqalna waan jiifsanaha aan weliba hala إلا عادي ما كان عادي سيدك حاد وعادي حول مرة جاء
marxuumka ilaahay ha u naxariisto video ugu dambeeyay oo soo dhiga weeye anagu hay'adaha xuquuqul insaanka Amnesty International iyo Human Rights Watch waan u gudbinaynaa Mareykanka aad aragtay adduunka ugu xoog weyn maalin kasta waxaan ku eedaynaa oo lagu haystaa oo anigu aan ka mid ah dadka inta eedaynaya Soomaaliya dadka aad ku duqaysaan markaad meel wax ku dhufataan dad shacab ku dhinta iyagu way qartaan hal qof hadii dilaan oo maandho ilaahan bahaysto oo falgareystay Congress hal qof haduu dhinto way sheegaan ma qariyaan hal qof aan dilin Mareykan ula mid yahay hal qof oo Soomaaliya ay meel ku dilaan ma iska qariyaan u sheegay cadaaladda asaas sharciga asaas wixii hadii wax ka dhacaan meel waa ina sheegtaa waxaas khalad buu u dhacay saas u dhacay transparent baa loo baahan yahay Buntland koila tasanay joogtay koila takaasana wuri yaro soo dhuuban Cismaan Maxamuud baa dadka laynaya wadaw reason waxa la wuxuu direeyna ma garanayna anagu dadku gacaliyo dadku hubaysan cid maanta aan hubaysnaa wallahi ma jirtay billaah taala warsangeli baa dadka ugu itaal yaro ilaahay baan ku dhartay guri kasta qori baa yaal waan heshay guri kasta qori baa yaal laakiin nabadaan jecelahay hartinimada Soomaalinimadaan ilaalinaynaa ma doonayno inaanu qas abuurno ma doonayno in boosaaso lagu kala guuro oo lagu kala kaco ma doonayno atamo qarna jooga qadar ee aanu dalka ka saar inaan dib soo celino wallahi billahi taala hadaani keenin ninkii saadiq dilay oo dawladdu bari aan shir jiraa toos qaban oo aan oran ninkii Cismaan Maxamuud ee ninka dilay waa kan isagiina waa lagu dul aasayaa hadii kalena arintiisa waxay u xutaalaa aadan Saciidkii iyo nimankii reer Muuse ee ninkaas ka dhintay halka aan soo jaaray wixii ka dhaca anigu mas'uul kamay adoo garaadow saama ahayn iyo saasatri iyo arintan ma ka hadashid ma jirto singeli aniga halka uga hadla aqoodan doodaya arinta ka fiirsada oo daniyow arinta ka fiirso hadhow saasay ila noqotay way ila macaanaatay arintana ila fududaatay saama moodeen anigu hadhow kama bixi karo sheekadeena markaan Soomaali u bandhigno hadhow anu saama moodeen marka sidaadii daniyow afka abur ka sideysid ama moodeen iyo aniga leeyma sheegin iyo ma dooneen dadkan ciyaalka ee aad magacawday ee aad boosaaso keentay taliyaasha ku ana adeero gacliyo nidaamka bar oo nimanka dhamaantood xilka ka qaado aan waxaan aaminsanahay nimanka in xilka laga qaado nimanka boosaaso jooga way ku fashilmeen shaqadii ma garanayaan war xagee laga arkay ninka ciidanka badda jooga waa Cismaan Maxamuud waa dan in adeerka Ruma Cabdirabbi baa leeyahay kan ciidanka BIS ta haysta waa inuu diyaano waa Cismaan Maxamuud kan taliyaha haysta waa Cismaan Maxamuud war dadku ma Cismaan Maxamuud bay afduubayeen dadkii kale meeyay war anagu qarkaasana basaarno oo idinka tagnay oo Singeliga qarkaas u saarayo way ka tagay waa kan buuta saaran waa ku waran lahaa dumar iyo Umar iyo Dubeys calmadow baa ciidamo u jiraan war qarkaasana saaranahay bal ummadii kale ilaahay abuurtay Cali Saleebaan la suuq roon la oo dayo qoyan la shalaan degnay la kacis wasmeele waxa sameeyay war dadkii meel dhaqdeen idishii shamee war hartigi la laqi war mushkil aan haysan war dadkii ma hadlaan dadkan la laynayo maalin kasta halkan lagu laynayo dadkaas soo badiyeen war dadka sidee ka daayay war bil Ramadaan baa lagu jiraa waa la cibaadeysanaya war dadka sidee ka daayay Cismaan Maxamuudow shaarba dheerayaalow ilma adeerayaalow waxa idin sheegay Khaliif Maxamuud baa sheegay kuwii shaarubaha miiqi jiray waa makaan dumay ee markay reer tolkood arkaan bismi tuxiyaanigu nimanka wuxuu ku leeyahay faa'iido kale ma bale Khaliif Maxamuud baa tiriyay dhowr iyo 20 sano ka hor markii SDF lagu jiray nimanka Cismaan Maxamuud hal kale ma yaqaanin buu ku leeyahay reer tolkood markay arkaan bismi tuxiyaan faa'iido kale ay leeyihiin jirto nimanka Dubeys baa yaqaaniyo nimanka Cismaan ugaariyahan maando Google baa dhignay qardaan ku heshiisiinay war nimanka iska daayaan ku nimankii way shaahi waayeen way kaaji waayeen way tukan waayeen khalkhal baa ku dhacay qaraa la soo galay halkan aan dhar laga yiin wax un bay akhriyaan Google baan u dhignay dadkii halkan aanu ka hadlay aqalada la hadlay baan ku jiray waan soo afjarnay adeer gacaliyo nabad baad wax ku leedahay nabadiina ku joogaysan nabadiina ku timsi meesha Buntland adeer oo kala dareeraa maamul yar buu ahaa isaaq iyo hawiye waxaan u sheegnay meesha in daarood iyo harti leeyahay annaga dadka u sheegnay nin Cismaan Maxamuud iyo nin Maxamuud Saleebaan intuu meel ka soo hadlo qof min aadan wuxuu sheegi karaa ma jiro sharad baan bixinaya hadda sheegtaan laba qof wax ma sheegi karaan inay wax musuqmaasuqaan oo wax isdaba mariyaan oo wax lugooyaan oo wax kharbaan oo qalin wax ku dhacaan mooyaan Maxamuud Saleebaan aaye kale ay leeyihiin ma jirto hal xitaa sheekh male afdalow faad aflooba ugu dhow lacagtii baa loo haystaa hadda gardafuul ururiye xitaa culamadooda wax isdaba mariyaan bal nin culimadii war hawiye hadduu adduunkii dhacay oo jeengadihi fuqsaday ee meel kasta ay liqeen ay baabi'iyeen xitaa culimay leeyihiin oo culimadu anagu wadhigsana isaaqa aanu ka cabanayno hadda ee Soomaali ka go'ay culimada ugu khatarsan ee Soomaali la dhageysto bay leeyihiin ee Sheekh Mustafa aan hayna Sheekh Dir aan cid kasta
mala socota nin maxamuud salebaan oo sheekha oo meel taagan oo wacd akhriya haddaan arko anuu ma dhageysto waa ka carara sababtoo ah liqda baa ku jirta ma yiraahdo buu hoos wax yar kaga mid baa soo wacay leefna waa ku jira dadka handicapkan la yaaban ma aaminayo anigu ma faham marka waxaanu yeelayno ma jirto waxaanu yeelayno ma mala socota marka waxaan u baahan waxa weeye dadku cadaalad bay rabaan siyaad bare waxa loola diriray oo isaaq ula diriray oo majeerteen ula diriray oo hawiye ula diriray cadaalad bay rabaan cadaalad bay ka saluugeen waxba khaldan bay yiraahdeen majeerteen baa dawladii Soomaaliya dumiyay maxamuud salebaan baa dumiyay iyaga qaraxna baday iyaga qaxna baday iyaga halkan Mareykan ma laha maanta Mareykan ma laha sanaad baan joogi lahaa maanta ugu badan tahay waxaan ahaan lahaa sarkaal sare oo dawladda Soomaaliya u shaqeeya gobolka ugu khayraadka badan waa keenay inaan maanta Mareykanka imaado oo aan Trump iraado Trump jeegi soodir maxamuud salebaan baa baday aniga kaliya ma konton Soomaali oo Mareykan waxa Soomaali iyaga baday iyaga dawladdu qori u qaatay iyaga ridii dankooday u rideen dan aan uma eerin dan shakhsiyadeed oo iyagu ay u leeyihiin iyagoo la naas nuujinayo dekada ugu weyn Boosaaso loo dhisay laamiga loo dhisay wariyaha gado hal cusbitaal kuma yaal hal cusbitaal siyaad bara kam dhisin gado hal laami wuxuu dhisi waayay wayna wuxuu dhisi waayay kam dhisin nimanka jeerteen ee maxamuud salebaan waliba ayuu iska jeedinay imaan laawayaal buu bixiyay imaan laawayaal iyagu iska jeedinay iyo isaaqna laami buu dhisay iyo wasaarada dadka kale meeyay artikala wax ma qaban dhulbaahante wax ma qaban bursingali wax anaga wuxuu oran jiray ma dhoofaysan ha tigro dibaddu noo diri jiray mala socota dekada maanta Soomaali cunaha la hayo ee halka lagu hayo mayaga dekada iskale hanti Soomaaliyeed weeye wilka gabil jooga Jibril Abukar iyo kan habar jecel baciido ee jooga ceelaf weyn ayaa ka dhaxaysa iyo kan Axmed Daahir reer Daahir jooga Burco ayaa iskale iyo Marixaanka jooga Gadow iyaga iskale dekad Soomaaliyeed weeye hanti qaran oo Soomaaliyeed weeye wax Ismaan Maxamed jirteen toona leeyahay haddii noqon weydo hanti qaran miyaha atan baan oreynaa buurta fuul baasukaha ku suurta عند ما كعبيسة مجرته تدخل حوش قتيجي يعني بربرية كذا هكذا وهدير الربع عدالة زيادة عدالة درع على ردر وكشع ما نكست تبع أنتوا عضيستي قبرية الصوفة جاي متشرتين يا عثمان محمود سلبان نكا كذا قوسته نكوض وقفي عن درجة جاري دولة الصومالية عن صلاحين حلبوا ككينيا شحوها محو قدمي شح هدبت بو قال كاميرا وين بو كتسي اسلامتي سيبا كاميرا بيليه وكو قرو هذا جوه هذا اسلام بيد وريسانيا مركي بركدها لين كنتو قيا كور waxaas ka shaqeynay wasiir arrimo gudaheedna waa wasiirku waxbarashadana waa Puntland haddana wuxuu rabaa madaxweynaha inuu shaqo dadka noocaas ah rabeen anaga noo taliyaan 2023 oo sharaxnay buu leeyahay anoo meel sixranay marka juxad dooranay aqliga maxamuud salebaan ka saas barina maamuliyeen bay keenaya adeer waxaan ma dhigaysan karno dadku ma dhigaysan kara Soomaaliyeed ma dhigaysan karayso ka xishooda dadka oo naga xishooda oo Ilaahay ka baqa oo 20 sano dalkan cunayseen oo miiranaysan meel ka fariista waxa ku soo gabagaynaya baaqay u dimeeyay daniyo dhagaha fur Boosaaso qasweyn baa ku soo socda anigu ku sheegay sida hadii aad wax ka bedelin oo nimanka taliyaasha ee ugu sawirale iyagu afuraya isa soo sawiraya ee laamiyada ku tukanaya marmayaga ordi karaba balin calooshu inta la eegtay oo kala taliye boolis baan xaqad ugu laaqaa tababarba su'aal marka taliyaano taliyaha waad garanaysa wuligii xitaa alif la musu soo marin wuligii xitaa dabla muusan noqon calooshi baa inta la eeg mise xabad riid karaba askartii Kenya xasuusta calooshi waa weeyay kuwaas oo calooshi weyn khibrad bay ku dareeno aqoon baa la socotay kuna aqoonna male askari Kenya dugsiga ka soo baxay waa nin akademiga wax bartay iska calool weynaadeen ma fahanti laakiin kuwan wax isku darsanaa calool weynanaan iyo xikmad dari aqoonna male taliyaan ay buuqlay waa nin 4.5 lagu keenay meesha Puntland wax ka socda ma jiraan Soomaaliya aniga taay qoran meesha reer baa yeeshay niman maxamuud salebaan leh waa hagbad nin waralan la yiraahdo oo Marixaana oo qurbaha jooga u sheegay Umar iyo Ismaan iyo niman ciidala ku sheegan cagta saari waa dawladnimo cayn kasta tahay Umar iyo Ismaan iyo niman ciidala ku sheegan cagta saari waa dawladnimo cayn kasta adeer gacay Umar iyo ciidala 20 sano Umar iyo ciidala ku jira waxaan ku jir karnaa 20 sano 30 sano Umar iyo ciidala ku jira adeer ku jir karnaa wadaar naga xishooda oo dadka ka xishooda oo Ilaahay ka baqa oo inaad reeyalo meel iska fariista waa daasheen
واداشين corruption كي بعروش أنت قاعدين لقاعتي ضدك ليس يبسته عمر عبد الرشيد بدي يبسي مشاكين هذا قانون ليس أورورية حوجاجة أدون كورن عن أصوب برناي ضد كورن العقد تمرتي كذا عدين وديك دربيه كلا دعي والحيطة ضاد كي العقد بعد عدين هاي النهار الدبر مساعدة حلوين الديان وكم مساعدة حلوة أتمنى كعربي هاي الشيخ أفلو وعلماء هو وينيدها كردفول واقع دعي ورثت نجاح صار حمود سليمان شيخ ملك وسياسي ملك وحلا لو حيليه المجرته دبحان كل شيء نامر ما عن قادنه إلا هدي يقول ووضع أولا قاطو ملك بين مقلة شيء نمكن ميلي وهاي ورساق حتى ميلي وهاي يفسين بيلي نمكن ساق حتى الشيخ معان بيلي ونعبر بالا شيخ سنكرتها حتى علماء ذا اللي سنكرتها الشيخ مصطفى ما فهم حتى سوغانتي يدقن كي الصوماليات بعد أهلوبيسا وهرجيسة وتجيسة هذا أنا بعرورته هذا قربة القرآن هذا ميل جيني يا رب أف صومالي أنا برو يعني وقوي من جيني يا رب وقوي من هالكاس الله عرّية دين تينا ويتشوكتا أف صومالي دقن كينا وياله المحمود سلمان ومحمد يكوي ما رايشة دقن يدوكوي من ماي دين يدوكوي من ماي دقالة إن السيسان يدوكوي من ماي دين إذا كبرن ماي محمد كيف عيدي أمن إذا صوتونا ماي محمد شن ترى من إذا صوتونا ماي محمد كلا يدكو حشا وإن مش وحلوات تجع وكونفور مركز تجي يدتكو حي أبتجان هسكر بدناته هويها واحد دونا هون شلون واحد دونا هسمية لكن على الأقل وحلي وربل عن سو هو قد سن وربل توجي أنا تجنو قدار عن السوع بل على الأقل قدار بالي على الأقل عمل يعني كونفورتا نمك هوي بلاك وحن بهوي له حنية حن بقى قلت جيه كان مسكده على عنه حن بل محمود سليمان وميل اللي يكسوها هذا مسكده اللي يطلع عنه مايو دين اللي يكبر مايو دقن مليه دين لقيتك أمان قلمه حاجة اللي بل ميل اللي يكسوها هذا نوشة هرتجي إن تشوجي لايسه ونعس هذا سعيد المنت كبر كل شيء على روح قلب سياسي لكن بلاي وقت كان على بلاي وقت كان على ويمغليان مانتا ويمغليان مانتا نمك اللي يرادا ويمغليان مانتا نمك اللي يرادا هذا سعيد أما قلنا ما قاط أما قلنا ما قاط وأنت بدأ أنت الضبطان حاجة وسيجين سده أما أنت طلابك قاعد وأنا أركب بران طبعا أضي أما كنت أضي أو جرع عصا أو شرقبتي وهنشبي وأنا أركب ويرادا وإن لقد العصا تليها لفتي وإن لقد العصا أنا كأمر كفيه أنا أقولي رأس كذا أقول له سوي بي وكعس وسنا أو شرتين كاس أنا قاعد أمدلي إنه نك اسمان آيس عيل الدري اسمان محمود بانو هاي سنة يجانو هاي سنة والله هاي بالله الله إن أنا يلي بعض ترى هذين لما يقول سنجلي فيلم كودي وإسكايا كلهم كي عادوا عنانو هردا ذي بتصدق بعد ما قلت الكينيانكو وقال لي عنانو لا بدك كنت أنا سوى بس كسيحني يا موت هذا الفيلم كان صور ما عادي وليس ترى الأكاذي وليس حقوق الأكاذي ما كييرين وحاس الدني هالمانن بي شمرمانن بي تبقى عدو بول كذي قبتي ما أنت بدك شيء ودتك بريد كنا قري سوق ديبتي ودتك أنت الله يسين عاد باسكورة أنت بشوف كسرتين ترى هذا وارسنال أو شيء كذي يقول اللي بان دير أي كشيء وعلى سلبان وقدميها قبل كبري ولا الكيس والله بان اللي قصو صار يقول يسي لما ذاك عمود بي على سلبان كوبي حني عشورته إن الدولة دي السينية أنتنا عشوائي السينية وحس معقلة بقى حنا مركز إساقو يادين نقول إن إساقو تبدأ كيبات لنعينا لقدين حنا حمروا يادين أي فرماتشة من ريحان كرمنا وهذا كديه نحلية سلام كديه تقول سب كده كلام ما كم أنصدو كديه نأنص كل ده إمارات كي الله هذا أنص الصفة عن أنصد شتى وصناديفية مركز يدوك صفة على صناديفسان فرماتشة أفك كتاب مسبي عفك كتاب نكتبها بكرة كبخ لو متاجر سنين لكن نقول هي سؤري محمود سلمان وضلك أطباء بإسان وسياد بري عاد الدين ويدوك أيضا وحسوا قرين وفرولة إذا كشقين كرلاية وعبدولة إذا كشقين كرلاية وكانوا هذا إذا كشقين كرلاية ماشي تشوجا تذكر إذا كتكين ولو بدأ الظهر عض برمان كي ورتين وأنا كأم مصري ظهر عض برمان كي ورتين أنا حشون ما حتى إن نجت بريرتين ونجا وديرتين مشرت أنا حشون هنا سومالي إنما دا أولين نجوا حري إيمان كي باولين نجوا حري يا ما أنا الإيمان بيرن ما أنا الإيمان بيرن ولي إيمان بانو حري ولي السؤال ما هذين إلا ما أنت نن وحقر بدي كلا وجرا أو حدنا ولا كلا
anyway waxaan leeyahay ma jirteen weyno talada garaadka dhigaysa labadaan baa lagu jiraa kuwa ay soo qoraya garaad cibaadaysa anu ma khalad baanin khalad ma oran anu inta isu tagtaan ma jirteeno oo shirtaan oo ashowtaan oo qarno ku shirtaan tala midaysan Soomaali ula kaaleen Soomaali tala midaysan ula kaaleen waxaad doonaysaan u sheega ilaa ay hadda dadku waxay ku wareersay waxaad doonaysaan ma garanayso siyaad bari maxaa ka doonayseen oo la dirteen wadadii buu idin dhisay tikadii buu idin dhisay taliyaal buu idin siiyay waad barwaaqowdeen haye baararka khamriga furateen oo dadku aan ciido ogolaan baxta la idin furay وننا عثمان حمود باو بدنا بارك خمر حمر دفي لها ولا الناس نوجني واحد كسر ليدين سمي لامي أن هرتي يدارو نان لسي ولامي ليدين بس يساق ليدين كهيلي تولد يدنا دمسي معارض بانقطع بقول عندي سبتة يدين هيلنا هرتيجي كلا يدين يمي مريحان بعد دارو نما يدين كبحي والبهانتنا هرتنمو يدين كبحي ورسنجرينا حبر ما تشرتنمو يدين كبحي يا تداي ما أنت عيد أقطني إنسان عيد هاي سنة مجرته أنا واقعنا حابة توسعون إنسان عيد إذا نحكي لسه مجرته أنا عقلي هنا وما مليون عقلي أنا ما مليون هين إذا ما هي طب كأي قدر عيشاش كان سوق هذا عقلي أنا أهين إنا واحد عضان أو واحد دوام مرسان أو واحد خرب بدان ملجدين بلان وين براد بلان هيسا لو دار حبك مجرى وحنا قصوافنا شو كوين كهلك أنا كشيء جربه أنت عن سحر كلا يقفرن سحرك أنت عن لا يقفرن كهر هل كاسك كشيء جري بلان وين براد حلالي وحكي جرى مجرى حلالي وحنا بلان أدنى ودتك وهرة مجرى الله يلين ما قصدي من قبل في عميدي أنا ما قرني وأتيت شيء قبل هذا أنا ما أعرف لكن دين آدمين دخان كلا آدمين إن لو جبت بعد آدمين وغير حمل كي دتك مساكين تعال عريضة بوسط شو جيب دور الله ينيا أنت باسكورات للدلو باسكورات للدور سارية اللي هي الشباب بيحاي اللي هين اللي ما روحين وريا عضينا يدتك المساكين اللي لاين الشباب هاين وحقيقة لو أركين أنت اللي تدري شرط رائد لجود القبطي الحكومي يسوق ميت مشيل حاجة لو أركته سوتي ميت أنت لا عصره لا قاعد تشري ولا بارد تشري وما المكب بعدي لورين تشري ورنيك أنا دلي ساسوا عدوك حقيقة نعم وردتك بوساسج ورنيك التليها قيبت بوسوكا ورميانك الشونين وهدو إلهي كحشون ومضى ميانك الشونين إلا أن ميدة أودلي وأنت أنا عضين كنا أنتوا باسكولات يسوق باسكولات أنتوا سكسوا وسهاري إلا واحد محمود سلامانك وين يعلن البدين ونقمنا وين يقاني لي ما كان واحد يجا يقاني تذكر أنت لا أيام بيساران باسكولات أو بمك وردان ويا بم بانو كخبرنا إلا بمك قريو يا لا يجا عندك عند بم هاي ستة مشرتي وحنا يجا سمية قرها بيجا سمية عثمان حمود بقى أقول بدن تذكر أقول خطر سنة سمية وحن كوسو برتي باكستان يميلها يجا سمية وحن مركا يوم رمانا ويس سمية استانو ويسكت دفاعان مركا كلنا وحن مغلق كذي دوّد إنتان لا سمية كهر حيوان كانوا تجابيه شركة إيه شيء كمل أوان مالك سبحانه وقرمينه مركا أنا ورسنجل هذا مو حنقول دوّد لقول شركة دوّد اللي قلت تجابيه معناه قف قال الرابط حبل قلت لي أرسنال بوا راح لما تستنا نوحن كأمسنين أنا صلاحين تلك هكذا ديرنا سومالي بين سكيننا هرتين ماذا إلهية دارون ماذا إلهية بلان ماذا إلهية لابد يكون يشنتي إمسال اللي قلت قبل إيه حسابي
ilaa iyo maalintaasna anigu halkaa ka hadlayay oo lahaa war dadka sida ka daayay ودي ولا بتجول كي ما نتعرش لا بتصير كبعي ما سيها لك رانو نو وي وراح صح مقولة ما صح نكي آل سعيد اللي الدليل ما أنت الجوري يسلون كل عي هذا فيديو جسيدين داري يسوي على دفار شوقة الجد هوستي شوقة إسكب بشالي النبات كسوهيدي الكوب يطمن كي واحد كهر هيسي يمي جوريس اللوج علي طبعا حب الغرفة فتي الجاري يصير لقاعتي كي سوق الأمنا عثمان أحمد أنتوا هذا حتى أنا تعسي الدليل ورنكي وين الدليل خلط بقى ودعي لودل وضدك ويخل طبعا بارتان بانو سمينا إن قعنتان كوهاي إن نكي دلنا وانو حنا والله وكوكا ملهني بالله الله ورتعسي موسى دليل نكي دليل موسى حنا كموسى صاحر لين ميد إنه تروح تاموسى هذا الكلام وعصر مركا أو نكي آل سعيدة علم ده صار يبورها ولقيسن دورها يتنقي نك آل سعيدة بوسج برنجوجا إنه أرنتا كون عدونه وسكس حنايا ويل كودي لدلي نوي واحد معقولة ما وردتك مكلا بدبادنا عثمان حمدو يدنيو ولا آرن جنبا كسرتي ماذا حكاها يستي آل سعيد مكاب بدبادنا نكي هدلي أنا كدو العاصم أنا قلت تليها أنا كوكان عنا ولي بقى نكاسوك رومان سيد كبي وهادلي dadka masaakiinta intuu laayay xabada dul saaray aan naxayn afka taagay soo haysta barigi Ismaan Xamuudku ay 1970 ay hawiyaha dhigaa ka jiri jireen anaga noomay ma jireen anaga dadka dhigaa ka jiri jirnay ay haysteen habar gidirta ay soo qali keenay u talin jiray hadal waqtigiina lama joogo dadka u talin jirteen ma anaga idinku qaawan dadka ku sheegi jirnay nabad ku wada noolaana boosaasi ma wada degnaa تكدا يرى أساسيين سياد برا بسي سومالي كم حتان غيركيسي وسين لها هدو قبيلة يتنك إن العثمان محمود هدو ما أنت مدحونا سومالي كان لها إنه جدو جين لها دكت يلان ما حسوا حكي لما ما بقي حتى ميلو إنه روب كدو موقع عليه روب هكدو يبورا لها سياد برا إنتو دكت دي سوق عليهم بوساسو كيان طبعا عشان لو كرس عندنا قرنية بوساسو ما أنت روح قالوا بلا وجه ما أنت روح لو كرس ولا حفناوة سياد بره كحندية الدعائية كده بس شودة يورد الصومالي أنا تعير حتى إلى واحد كم مقانا إيمان لي هيني متشرتين إيمان لي بعد هيصدق صومالي حكومته في سؤالي كان نقطة مدحوينا كان نقطة بولان أفضل تلاباتن سنة عمري عثمان كترنا تكدي إذا كان شقية تلياش ويدك سردونك ويدك لعبت إذا كان ضابعية قشنك إذا كان فيقية بيها مدحتوية إذا كان جينية هي بارك خمرك الصومالي حتى إذا كان هيستولي تكون ناس نوجي هاي إذا كان مقر مركب حربتان ضد كان يبستان بقى بدي عمر عبد الرشيد بقى توي يبسدي هي حاسس واحد هنا هريانو قرن ماي ورسنجيري ضد كان لايس حلا عاراريد لايس ضد كيو دولة الصومالية لا دررته ودي كفرماتو انت هايستا علي السلامان يوم شيرتينكي كلا يوديقو ين يشان دغني iyo kacis wasne iyaga noomanad gareyso laqday oo cidi kama noora ila hartu todobo ahay dadkii meeyay ma tii kala maqashay aan soo dhabantaay iyaga laqay way laqeen anagu waxaan ku badbaadnay banaanka san taaganay dan la joog la war la qalahay marka waxaan baaq u soo jeedin waxa weey dadka meesha degan aqliga ha shaqeeyo dad xadaariyiina baa lagu yaqaan oo ilbaxa oo aad fikra baa dadka waqooyi baa lagu yaqaan الفكرة كلهم كانوا عادونا لكن ور أيامها يسندان دم تدو وحوشة صباح وحوشة والدنيا وغوري يعد لم فلكشة يعني ما نعدو كتير حن أقبله إنه ما لما تسأل عن شونين أنو قرأت كيفان الكاسين في اليوم كوفين تصحوا عن لها هرتين ماذا يدارو ماذا يصومعين ماذا هلا يعليه ما ننتشر دواب الله ويعرّي بيجود ميسان وهرتين ما عنكهم هرتنمadu gorma shaqeynaysa mar roobo anoo faataxay soo diri jiray mar taageersanay laakiin wixii lagu sameeyay waxaan aqbali karo ma ahayn wax aniga lagu sameeynayo qof kasta oo Soomaali oo reer Puntland lagu sameeynayo ma qabalayna hada dulinimada anagu ma qaadan karno maybe ma jirteen kale inay qaataan ka iswasna iyo shalan dignay waxa yareerka noocaas laakiin anagu we can take that shit man ma qaadanayna runta idin sheegay كأهل سعيد ولا دلي بوصاص اللي قد لي مانتا يعني يرى لها فيديو جيسي هالك عن كداري سووا جد هوستي تشوبه سكبا شالية رمضان صومن قول جيسي اللي قد عيل دلي قاريس اللي قاطي
baan rabnaa anigu jawaab baan ka rabnaa anigu wax Puntland la yiraahdo maanaan aqoonsanin Ismaan Maxamuud baanu ka rabnaa ninka Ismaan Maxamuudow naga soo garbax tii baarlamaanka ninkii biidoor disheen baanu idinka aamusnay dhooba waxaa ku soo baanu idinka aamusnay hartinimo iyo Soomaalinimo iyo daaroodnimo iyo islaamnimo idinku deynay boqolaal kale oo ka xun baad sameysanaanu idinku deynay tiim jihan baanu ka aamusnaanu idinku deynay masasku idin la dagaalameen iyo gungumayaasha boqolaal kale oo booso lagu dilay baanu ka aamusnay aanan ka hadlin wallaahi baana tan uga aamusay bilaahi baana uga aamusay waa Soomaali wallaahi baana uga aamusay Ismaan Maxamuud bay arrintan fadhidaa kundihiinay fadhidaa boqorkaanu kala tashanaynaa idinkaanu idin haysanaa jirteen kale aan u haysan Ismaan Maxamuud kale aan u haysan cid kale aan u haysan haddii xitaa ma qaataan aadan Saciid oo yiraahdo arrinta anaga ka xaal anagu yeeli been waxaan qoraynaa aadan Saciid marfuu qalab tan waxba lagu halay karin sababtoo maanta maalin laga wada hadlo arrinta ma jirto wadka barwaaqa ka daaday cid baahan oo ma baahan ma jirto ninkii ninka dilay alla keen 10 nin buu u dhigbaa qaladka loo dilay marka la eego iyo kabad wax ka dhacay meesha markaanu hadhow ceel daahir goyno oo aanu iyadoo hadda roob maray baa la mari waayay roob jaray la mari markaanu 10 wiil intaanu geeyno aanu jarno bundada bamna aan ku xidhno ee la sugud bi waayay ana waan naqaanaa reerka qaaran doona gabiga wahay Maxamuud Sabakaab waxa ku jiray magligii afeeyay baliya moodka celinayay baliya habar ma jeerteen maslaxad dib ugu maareynay gabigaas wuxuu ku jiraa buuga leeyahay kooradada baatib waa akhriisa magligii afeeyay baliya moodka celinayay baliya habar ma jeerteen maslaxad dib ugu maareynay cidda maslaxad u doonaysa hadhow ee gogasha dhigaysa baan anu la yaabanahay ilaa ninkii wax tartiibin jiray ee oran jiray oo markaad isku yaacdaan idin dhexdhexaadin jiray anigu ahaa boqor buur madow intuu soo kaxeeyo Sultan Sidi Cabdisalaam buu ahaa haddana muuse u kala dab qaadi Cabdilaahi la aqal in kala yaliyo maleedin anu wada naqaanaa dad maanta kii dishaan waad fogeysaan soo sida quraanjo cad yar lagu tuuray curuf iscuni maysan la aqal kala ma jiray anu wada garanaynaa sheekooyinka aan saaqa iyo hawiyaha u sheegno halkan naga dhiga nagiibeenu nahay waas naqaanaa runta ma isu sheegnaa artiyo iyo jirteeno Maxamuud Salabaano jirteen kale ma jiray nimanka 20 sano meesha iska haysta ninka aadisheen oo singili kuwii kala hab laga xaal kuwii kala Soomaaliyeed u yaalaan nimanka kale masaakiinta la dilay ee fiidiyowga markii hore ka hadlayay niman Soomaaliyeed bay ahaayeen baaritaan madax banaan bay u baahan yihiin not only for me inaan anagu arrintan aan interest garaynayo Soomaali oo dhan bay u taala dad baa la laayay in al-shabaab anagu ma cadeyneen guddi madax banaan oo Soomaali isku dhafa oo cid kasta la magacaabo hala baaro in nimankaas Arsenal haayeen iyo kale yaan Puntland lagu halay intaan la aasin Maxamuud Salabaano dadka inta laayeen bay iskaga tagaan aaraare badan bay saawlaayeen anagu laakiin kaayigi guddi Soomaali u tirsan anaga baaranayna anagu meeshaan u teginahay Rebel Beedkii baanu nahay anaga waxaan uga aqoon badan uga khibrad badan tamarteedii iyo xooggoodii iyo aqligeediina waanu haynaa kaayaga anaga baaranayna talaagid buu ku jira lama aasiyo halkaas uu ugu jirayaa whatever inta ka soo cadaanayso cid aan Maxamuud Salabaano ahayn oo ma haysano special Ismaan Maxamuud iyagaan u haysanaa qardhay taala sheekadan waxa dhow aniga marka tiraadaan maandhood baan Ismaan u gaariyaan iyo Ismaan Cabdi Heshiinayne bal cidda dame oo idin kala dab qaadaan arki doona si shirgariya fiidiyowga wada salaamay